waxaa aad maaragtay mahadnaq aan ugu jeedinaynaa gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo guddigiisa fulinta oo u dooreen doorashada ay sameeyeen hawadan aad u adag idinkoo og maaragtay ciyaaryahan Mo Farah bismillaahir rahmaanir rahiim maanta insha Allah taala waxaan soo gabagabay doonaa 10 maalmood oo xulkeena da'yarta 17 jirka ka hooseeya ay ku joogeen dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa 10kaas maalmoodna maaragtay waxyaabaha ay u joogeen waxa kamid ahayd in ay la qabsadaan maaragtay qabowga iyo oxygen oo wadankan aad u culus iyo ciyaartooyda kaleeto oo dibadda ka imaanaysa in halkan iyagana isku bartaan tan kale loo yimid inta waxay ahaday in maaragtay maadaama guddiga caafimaadka qabanqaabada caafimaadka kaaf ay soo saareen maaragtay talajeedin soo jeediyeen MRA-ga in ciyaartooydeena da'yarta interna looga saaro maadaama uu joogo dhakhtar professional oo kaaf ka howlgala oo ku leeyahay MRA-ga sidaas ayayna ahayd marka insha Allah taala dhowr ciyaartooyna waa ku ogaanay inteena badan da'yartina waa lagu saaray MRA-ga insha Allah taala caawa waxaan aad u safri doonaa dalka Algeria waa meeshan waxa aad maaragtay mahadnaq aan ugu jeedinaynaa gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo guddigiisa fulinta oo u dooreen doorashada ay sameeyeen hawadan aad u adag idinkoo og maaragtay ciyaaryahan Mo Farah markuu uu galay tartan caalami oo marathon inuu imaan jiray dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa oo ku sameey jiray tababar oxygen neefta oo la qabsado